Ururka iskaashatada shaqaalaha ee Verdi ayaa 5,000 shaqaalaha amniga garoomada diyaaradaha ka shaqeeya ugu yeeray inay maalinta Khamiista ah gadood ama shago joojin sameeyaan. Shaqaalaha ammaanka ee garoomada diyaaradaha ee Jarmalka ayaa maalinta Khamiis shaqo joojin sameynaya. Mid ka mid ah ururada shaqaalaha ee dalka Jarmalka ayaa ku dhawaaqay in shaqaalaha ammaanka ay bari oo Khamiis ah shaqo joojin ku samayn doonaan garoomada diyaaradaha ee ugu mashquulka badan dalkaasi xilli uu taagan yahay muran ku saabsan mushaaraadka. Maadaama aan wax heshiis ah laga gaarin saddexda wareeg ee gorgortanka wadajirka ah ee shaqaalaha amniga, Verdi waxa uu ku baaqay shaqo joojin maalinta oo dhan ah. Dhowr garoon ganacsi maalinta Khamiista, ururka ayaa ku yidhi bayaan uu soo saray. Verdi ayaa sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya amniga duulista, rakaabka iyo kantaroolka alaabta iyo goobaha adeega ay ka qayb qaadan doonaan shaqo joojinta hal maalin ah ee ku dhowaad 10 garoon diyaaradeed oo ay ku jiraan xarumaha ugu mashquulka badan ee Frankfurt iyo Munich. Shaqo joojinta ayaa sidoo kale ka dhici doonta garoomada diyaaradaha ee Berlin, Cologne, Düsseldorf, Hamburg iyo Stuttgart, Bonn, Bremen, Hannover. Ururka shaqaalaha oo wakiil ka ah ilaa 25,000 oo shaqaale ammaan ah ayaa dalbanaya in loo kordhiyo mushaharka €2.80 saacaddii iyo qiimo sare oo mushaharka saacadaha dheeraadka ah. Shaqaalaha ammaanka ee madaarku waxay mas'uul ka yihiin shandadaha, shaqaalaha iyo hubinta rakaabka, taas oo la macno ah in garoomadu aanay shaqayn karin la'aantood. Waxaana la ogyahay in ururka shaqaalaha uu dalbanayo mushaar kordhin loo sameeyo xubnaha ururka. Tallaabo la mid ah tan oo kale ayaa dhacday bishii Maarso ee sannadkii hore, iyadoo la xiray garoomada diyaaradaha ee Jarmalka oo dhan, waxaana hakad la geliyey isu socodka hawada. Sidaa daraaddeed, haddii aad safar duulimaad ah lahayd Khamiista, magaalooyinkaasna ka bixi lahayd amaba ka soo degi lahayd, ku tasho in la kansali karo duulimaadkaaga ama in saacado dib u dhaca iyo wixii la mid ah ay kugu imaan karayaan. Wax walba ku tasho, si gaar ahna u baar oo ula soco duulimaadkaaga inay saamaynayso iyo in kale.